الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين cadaadisyada iyo ciqaabuhu waxay bilowdeen bartamihii sanadkii afraad ee nebinimada isagoo cadaadisku markii hore si aayar ah u bilowday dabadeedna si isdaba joog ah u sii adkaaday ilaa uu bartamihii sanadkii shanaad gaaray heerkii ugu darnaa markaasay muslimiintii joogidda Maka ku adkaatay waxaana ku dhalatay inay ku fekeraan xeelad ay uga samata baxaan ciqaabta xanuunka badan waxaana maalmahaas qaraar soo degtay suuratul Kahf oo inkastoo ay ka jawaabaysay su'aalo gaaladu soo jeedisay haddana xambaarsanayd qisooyin xeel dheer si sarbeeb ah muslimiinta u dareensiinayay waayaha soo aadan iyo sida abaartu tahay oo la gudboon suuraddu waxay xambaarsanayd 3 qiso oo kala ah qisadii asxaabul Kahf oo mu'miniinta ku toosinaysay inay carrada gaalada ka haajiraan markii ay diintooda u yaabaan oo allahood isu dhiibaan oo tala saartaan iyo qisadii Khidr iyo Muuse oo tilmaamaysay inaysan arrimuhu mar walba sida daahirka ahayn ee laga yaabo inay marar badan sida muuqata khilaafsan yihiin oo la digeeda yihiin taasoo muujinaysay dagaalka muslimiinta lagula jiro inuu isu rogi doono oo haddii aysan qooqaayada gaalada ahi islaamin ay mu'miniintu tabarta yar oo maanta la baaxsanayaa maalin ka gacan sarreyn doonaan oo gabagabayn doonaan iyo qisadii Dulqarnayn oo sheegaysa in dhulka Alle leeyahay oo uu dhaxalsiiyo adoomadiisa kuwii uu doono ee liibaantana lagu gaaro jidka iimaanka ee aan gaalnimada lagu gaarin iyo inuusan Alle deynayn inuu mar walba u soo bixiyo adoomadiisa tabarta yar cid ka samata bixisa dulmiga daalimiinta sidii uu Dulqarnaynba uga badbaadiyay Yuug iyo Yamaayuug dadkii la deriska ahaa ee ay mar walba ku soo duuli jireen dhaxlidda dhulkana waxaa mudan adoomada Alle ee saalixiinta ah waxa iyana markaas kadib soo degtay suurata As-Sumur oo iyana hijro tilmaamaysa iyo inuu dhulka Alle yahay dalaal aan ciriiri ahayn iyo inaysan mu'miniintu u arkin nafahooda kuwa ay koobeen xoogaga jujuubka iyo sharku rasuulkuna sallallahu alayhi wasallam wuxuu ogaaday boqor xabashida oo la oran jiray Asxama an-Najaashi inuu yahay boqor caadil ah oo aan agtiisa cid lagu dulmiin markaasuu asxaabtiisa amray inay u haajiraan oo diintooda fidnada kala cararaan bishii Rajab ee sanadkii shanaad waxaa dhulka xabashida u haajiray kooxdii u horeysay oo asxaabta ka mid ahaa oo 12 nin iyo 4 dumar ah ka kooban waxaana madax u ahaa Cismaan bin Affaan oo ay weheliyaan afadiisii Ruqiya gabadhii rasuulkuna sallallahu alayhi wasallam labadooda wuxuu ka yiri waa gurigii u horeeyay oo Alle dartii u haajira Nabi Ibraahim iyo Nabi Luud alayhi salaam kadib qoladaasi waxay socdaaleen oo duseen habeen mugdi ah si aysan Quraysh u dareemin waxay aadeen xagga badda iyagoo abaaray dekada Shucayba waxaana Alle la soo kulmiyay 2 doonyood oo ganacsi oo xagga xabashida ula gooshay Qurayshna intay ka war heshay arrintaa bay ciidan ka daba bixisay laakiinse waxay xeebtii tageen goor laga tegay oo mu'miniintu samata baxeen muslimiintu waxay barwaaqo iyo baraare ku degeen dhulka xabashida bishii Ramadaan ee isla sanadkaasna wuxuu rasuulku sallallahu alayhi wasallam ka qayb galay kulan xaramka lagu qabtay oo ay ka soo qayb galeen dad badan oo Quraysh ah oo ay ku jiraan odayaashii iyo duqeydii Quraysh markaasuu ka dhex istaagay si kada ah oo suuratu An-Najmi u akhriyay gaaladii Quraysheedna markaas ka hor hadalka Alle may dhageysan maxaa yeelay waxay ku shaqeynayeen dardaarankoodii ahaa inaan Qur'aanka la dhageysan markii uu rasuulku sallallahu alayhi wasallam ku kadiyay akhrinta suuradaas oo dhagaha uga garaacay hadal ilaah oo bilic iyo soo jeedasho leh bay waxay hayeen faraha ka qaadeen oo mid walba dhageystay oo dhagaha u raariciyay isagoo aan wax kale laabtiisa ku jirin ilaa laga soo gaaray dhamaadka suuradan oo amakaa ku riday dabadeedna sujuud buu la dhacay rasuulku sallallahu alayhi wasallam markaasay mushrikiintii iswadahayn waayeen oo sujuud la daateen dhab ahaantii wacdarihii xaqii baa dilaacay madaxadaygii isla weynayaasha
oo way ishayn waayeen oo alle bay u sujuudeen. way ka qoomameeyeen markii ay dareemeen in haybadii hadalka alleh hoggaankoodii leexisay oo majarahoodii duuday. waxay ku dhaceen waxay wax badan diidanaayeen oo la dirirayeen. meel kastana waxaa uga yimi canaan iyo haaraan ay gaaladii madasha ka maqnayd u soo jeediyeen. markaasaa rasuulkii sala allahu calayhi wasallam sabiteen oo ku been abuurteen inuu kelmado uu sanamadooda ku qaadarinayo akhrinta ku daray oo yidhi waa qoordheerayaashii sarreeyey, shafiicadoodana waa la rajay. masabidkaas cad bay la yimaadeen si ay uga marmarsiyoodaan sujuuddii ay nebiga sala allahu calayhi wasallam kala qayb galeen. taasina la yaab kuma aha qoon been alifid iyo nabidda caadaystay. warkaasi wuxuu gaaray dadkii xabashida u haajiray si xaqiiqada ka duwan baana loogu sheegay oo waxaa lagu yidhi qurayshi waa islaamtay. markaasay bishii shawaal ee isla sanadkaas soo laabteen. markii ay soo gaareen meel maka looga socdo maalin qaarkeed bay xaqiiqadii ogaadeen. markaasay qaarkood xabashida isaga noqdeen. intii maka soo gaartayna ama qof magantii bay ku soo galeen ama qarsoodi. dabadeedna iyagii iyo muslimiintiiba ciqaabtii bay qurayshi ku sii xoojisay oo nin walba xigaaladiisii baa ku soo haliishay. oo qurayshi waxay ka masayrtay nolosha wanaagsan ee muslimiinta dhulka xabashida ka heleen oo quraysh uga raysteen. rasuulkuna wuxuu ka fursan waayey inuu asxaabtiisa mar labaad kula taliyo inay carrada xabashida u haajiraan. walaalayaal, darsigeenni maanta halkaa ayuu ku dhan yahay. inta aynu darsi kale kan lamida ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa ammaano allah iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.